barasaabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Timacade ayaa maanta waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay bridge kala jab ee duleedka magaalada Berbera oo uu dhaawac xooggan soo gaadhay. Bridge-kan ayaa waxa khasaare kala duwan kala kulma gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. Barasaabka ayaa waxa uu sheegay inay baadhis ku wadaan cidii bridge-kani dhaawaca soo gaadhsiisay. Barasaabka ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Somaliland waxaan ugu baaqay inay bridge-kani sida ugu dhaqsaha badan leh ay wax uga qabtaan. Waa kan barasaabku isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waa run way jirtaa hawsha maxaan ku dhaahdaa bridge-yada dhaawacyada soo gaadhayaan intaan joogay hal mar baa lagu sameeyay dayactir horena runtii waan uga hadalay marka hore waxaan isleenahay wuxuu markuu raago ee muddo badan jiro kulley repairing iskaga baahanaya dayactir iyo gacan ku hayn taana waa la daba taagan yahay laakiin tan u dambeysay markaynu eegno oo runtii ahayd tee dayactirka ay maxaan ku dhahdaa wasaaradda hay'adda wadooyinku ay ku sameeyso isla markaas ay dhamaysay kabkii hore iyo maxaan ku dhahdaa sameyntii hore in maalmo gudahooda dana meeshii meel ku xigta si kadis loo dalooliyo runtii arrintaasi degdeg baan uga howlgalay baadhis xoogganna waa noo diray waana lagu daba jiraa kolleyto maxaan ku dhahdaa warar muhiimana waanu haynaa raadad fiican oo raaci karo ciddii waxaa ku lug lahaydna waanu haynaa insha Allah dhawaana natiijada baadhistu way soo bixi doontaa waanu ku dhawaaqi doonaa wixii lagala kulmo wuxuun baan laakiin kolley marleyba leh dadweynaha jidku waa inoo dan cid walba waa wadan jidkani waa kan isku xidha bari iyo galbeed waa halbowlihii maxaan ku dhahay wax kasta oo bari u socda halkii uu marayay loo baahan yahay cid kasta oo muwaadin ah inay ilaaliso waa xaq lagu leeyahay dhagax la dul dhiga inaad ka qaado iska daa inaad dalooliso ama aad dhibaato kale u geysato muddada inta ka horeysa baadhista iyo natiijada ay ciidanka boolisku gacanta ku hayeen baadhista ay wadaan qof walba mas'uuliyad baa saaran sidan hadda idin lahaa qaranka waa la wada ilaalinayaa wixii danta guud waa la wada ilaalinayaa wixii dhibaateynayna waa laga qabanayaa cid ay hadhow noogu cadaatana talaabo adag baa laga qaadi doonaa hay'adii wadooyinkana waan ku wargelinay inay degdeg arrinta wax uga qabtaan saakaan ula hadlaynay horena waan ula hadalay inay wadadana xidhaan maxaan ku dhahaa tii hore ee laga leexanayna ay u baneeyaan waan ku wargelinay hay'adii ku shaqada lahayd oo hay'adii wadooyinka imikana mar labaad baan ku wargelinaanu leenahay iyo mar saddexaadba halka hal degdeg ha loo xidho oo inta la sameynayo halka in la xidho degdegna arrinta waxaan leenahay hay'adii wadooyinka degdeg u soo gaadho hana qabato maxaan ku dhahay sameynteeda isla markaana ha ka xidho baabuurta maxaan ku dhahay soo galaysa oo u direen cagafyood iyo qalabkoodii kulley jidadka way ku jiraan waxay joogaan ka shaqeynayaan waa sheekh oo kulley jidka had iyo jeer way ka shaqeeyaan inay degdeg u soo gaadhaan imikana halka ka xidhan baano horta deegaankaasi waa deegaan maxaan ku dhahay macdanta oo horumarka khayraadka dalka waxa ku jira waxyaabihii aynu qaadanay khayraadka dalka lagu horumariyo macdanta kamida wixii dhulka ku jira in la soo baxno macdanta halkaasi maxaan ku dhahay shirkado ayaa degayo khayraadka dalka ka soo saaraya kolley dadkeena waxaan leenahay war meel hadday wax ka soo baxayaan oo waxay noo soo kordhayaan in la soo dhaweeyaa fiican in laga sii hortagana ma fiicna arrintuna qaran bay taagan tahay ma taagna maxaan ku dhahay kala jiidasho ma taagna wax kasta horumar oo halka ka soo kordhay Cabdirasaaq Qaasin Jaamac wararka telefishinka Sam News TV Berbera.